furalaystaa la yidhi xoolo iyo caruur iyo wax walba waa helaysaan haddaba waa astaqfir allah waxaa lay sheegay inan yar oo soomaaliyeed oo muslima oo maraykan joogo oo shaqaysta oo yidhi maalintii 2,000 oo astaqfir allah baa sameeyaayo wax haba yaraatee nolosheeda isii hortaagaaba jiraan hooyaday baan maalintii dambe u imo dukaan haysato waxaan ku yidhi buu yidhi hooyo haddaad laftaada oo astaqfirlada badiso dukaankaagu wuu camirmaya islaantiina way samaysay dukaankeedu baaba camirmay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxaa layna barayaa asbaab kaloo aan ahayn asbaabtan maadiga aynu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbu samaawaati inuu labadaba isagaa qaanuunkan dhigay qaanuunkan fiisigiska iyo dhaqaalaha nolosha lagu wato isagaa dhigay maca daalik isagaana ka tallaabsan kara walidaalika baa karaamaadka iyo mucjisaadka iyo waxaasoo dhamme waa maxay waa qaanuunkaynu naqaano laga tallaabsanaya dee karaamadu waa wixii aynu naqaanay oo laga tallaabsaday walidaalika suuraddani waxayna baraysaa markaa fitanka dhammaanteed hadday fitno diineed tahay iyo hadday mid maal tahay iyo hadday mid cilmi tahay iyo hadday mid suldo tahayba in laga tallaabsan karo haddaad suuraddani manhajkeeda fahamtid oo ah qofka suuraddan akhriya adaa lahu nuurun baa la yidhi nuur baa loo ifiyaa oo bayna aljumca waljumca uu ku ifsan kara baa loo ifiyaa waxaan leenahay suuradda tani waxay baraysaa qofka muslimkaa noloshu waxay leedahay wax laga boqo waxay leedahay mushkilaad kaa hor yimaada waxay leedahay mugdiyadu qalaq bay leedahay waxay suuraddani ku baraysaa sakiinada xasiloonida iyo tumaaniinada iyo haddaad suuradda tan akhrido in qalbigu kuu xasilo oo aanay waxaasi ku argagax gelinin laa xoog gaal baa ku argagax gelinaya walaa dhaqaale ay kaa badinayaan baa ku argagax gelinaya walaa dunidaanu maamullaabaa ku argagax gelinaysa waayo waxaad rumaysantay rabbu samaawaati walardi inaad ku xidhan tahay oo ku taxantay walidaalika ayuha alaxiba haddaynu isnidhaahno suuradda ka warrama runtii wax badan baynu sheegi karnaa manaynan qisaska midna maynan tafsiilin tafaasiirtaa ku dhigataan oo laydin tafsiilinaya